بلان كراسمة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما أنتوا تاريخ دوتهاي سدح بش أفراد waxaan runtii aad ugu faraxsanahay in maaragtay hawshii ilaa muddadii la soo waday meel fiican soo gaartay oo xildhibaanadii doorashadan ma dhacaysa iyo sabab shaqo lagu jiray in la bixinayo maaragtay shahaadooyinkooda la siinayo aad ugu faraxsanahay alxamdulillah ilaaha baan ugu mahadcelinayaa mahad koowaad ilaaha iska leh waxaan kala mahadcelinayaa dadkii ku shaqeeyay oo suurtageliyay in maaragtay doorashadii ay qabsoonto xildhibaanada usbaha shahaadadooda la siiyo si ummadda Soomaaliyeed ugu abuuranto yadadiilo cusub iyo dawlad dhiski iyo maaragtay habsami u socodkii doorashooyinka inay suurta galaan shaqadii ummadda Soomaaliyeed ka zuusho aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dadkii shaqadaas qabtayna waa u mahadcelinaya xaqiiqdii waxaan kale rabaa inaan ku booriyo xildhibaanada Soomaaliyeed dhammaantood maadaama doorashadan waqti la rabay oo diyaarka ahayd oo dastuuriyan la falayay dib u dhacday haddana mar labaad in maaragtay maadaama la dadaalay arrintii suurta gashay in xildhibaanadii la doortay ummadda aamintay in ay dib u dhac kale sabab u noqonin oo shahaadooyinkooda qaataan taasna runtii waa ku dhiirigelinaya ama waa ka codsanaya xildhibaanada Soomaaliyeed in maaragtay shahaadooyinkooda qaataan waxaan si gaar ah u xuseeyaa aniga maanta imid safaran ku maqnaa waxaan ogaaday markaan imid guddiga u imid waxaan ogaaday isteedada maaragtay qaar inay dadaaleen oo qaateen shahaadooyinkoodii isteedka aniga aan ka soo jeedo koonfur galbeed in waxaa la ii sheegay xildhibaankii koowaad aniga oo maanta safarkii imid aan ahay qofkii bilaabay xildhibaanadii horey u joogay in weli shahaado qaadanin arrintaas waxaan leeyahay walaalahayga xildhibaanada ah inay shahaadadooda qaataan sababtaasna waxaa la iiga sheegay markaan waraystay in maaragtay yacni barnaamij xildhibaanada lagu cadaadinayo inuu yahay oo ha aadin meesha shahaadaha qaadin in leeyahay oo waxbaan tarsanaynaa la leeyahay waa dhici karta in wax la tarsado oo xildhibaano oo isteedka ka soo jeedo yacni la fargeliyay doorashadoodii guddiga yiraahdeen xildhibaanadaad arrintooda sax ma aha in la yiri iyo xildhibaan kale inuu jiro waa la ii sheegay nidaamka doorashada wuxuu leeyahay hab lagu heshiiyey hab raac oo Soomaalida samaysatay jira sharciya jira nidaam jira arrintii la isku qabsado waxa lagu kala baxayaa wada hadal iyo nidaamka ummadda u degsan oo lagu heshiiyay lagu kala baxayaa laakiin xildhibaanadii dood ku jirin oo dood maaragtay xildhibaanamadooda la isku raacsan yahay in kii la isku haysto dacwad gali daraadeeda ay maaragtay loo hor istaago waa arrin aad u qaldan waxay noqonaysaa in xildhibaanka xornimadiisa iyo karaamadiisa wax gaarayaan xaqiiqdii taas waxaan kula talinayaa walaalahayga in maaragtay arrintaas qof kasta la dulmiyay waan ka soo horjeednaa in cadaalad la helaan u baahanahay wixii la dhabsaday nidaam loo kala baxaya jira laakiin waxa kale hadda dulmi lagu bilaabayaa dadkii doorashadooda xalaawa la yiri oo la isku raacay ayagana doorashada laga hor istaagay shahaadada waxay noqonaysaa cadaalad darka la noqonaysaa aydan marka sidaa daraadeed waxaan leeyahay xildhibaanada waajib cusub la saaray hil shalay ayaga korkooda ahayn oo waajib dastuuri ah oo ummadda Soomaaliyeed soo doortay ku leedahay ayaa korkooda noqday in waajibkaas ay gutaan ayaa laga maarmaan ah waxaan ku boorinayaa in maaragtay arrintaas ay ka fiirsadaan oo shahaadooyinka xaq u leeyihiin wixii ummadooda u dooratay inay fuliyaan taasaan kula talinayaa runtii aniga ka aadan madow ahaan mas'aadan maxamed nuur sheekh aadan madow haddaan ahay aniga marna maaragtay weligayna ma sameeynin hadan lagama yaabo dhibaato Soomaaliya wax u dhamayso oo dawladnimadeeda iyo nidaamkeeda iyo nabadeeda weligay aniga horseed uma noqonin raalana kuma noqon isteedkaasna waxaan isleeyahay odayaasha maanta la dhihi karo xuquuqdooda iyo duruufii ay soo mareen qofkii koowaad mas labaad inaan maaragtay ahay oo aan marna ogolaanaynin in ummad Soomaaliyeed lagu xadgudbo gaar ahaan haddii isteedka aan ka soo jeedo maadaama dastuurka uu qabo xildhibaanka laba miislaad buu leeyahay mid guud ahaan qarankan waa lagu leeyahay mid deegaan doorashada waa lagu leeyahay mid deegaan doorashada markaan u noqdo مدك Soomaaliyeed horta ma arday xildhibaanada Soomaaliyeed dhaxda ugu jira wanaagoodun waan ku talinayaa insha Allah in Soomaaliya horumar gaarto
dawladnimada sii dhisanto maadaama baarlamaankii hadda ugu dambeeyay hadda aan ku jirno ummadda Soomaaliyeed dhaliilo badan u soo jeedinaysay waajibaadkiina waa gaabiseen lana lahaa baarlamaankan hadda cusub dhalinyaro badan oo farfarcoon dhiig usoo badan waa soo galeen aqoon-yahano badan soo galay waxaan rajaynaynaa isbedel la dareemi karo ummadda Soomaaliyeed raali gelinayo oo yani wixii ay tabanaysay ka tartarayo yaan ka sugaynaa baarlamaankan marka maadaama ay saas tahay state-ka aniga ka soo jeedo waxaan leeyahay walaalayaal haddii wax dhabaata state-kaas dhabaayba haday jiraan qof aniga iga lixjeel badan ma jiro laakiin in arrintiisa kale loo fasiro oo maaragtay ama maaragtay shakhsi gaar ah dantiisa yani in ummadii loo hor istaago waajibaadkeeda dastuuriga ahaa waxa la ogolaan kara ba aha waxaan idin leeyahay walaalayaal dhalinyaro mutacalimiin u badan tihiin dad siyaasadda ku cusub oo aad bad xiise loo qabaatihiin aniga walaalkiinaan ahay idinka weyn odaygiinaan ahay aniga maanta shahaadadii waa qaatay waa u jeedeen waxaan rabaa dhammaantiin inaad qaadatiin oo aan wada fadhiisano waxyaalaha problemka oo guud ahaan Soomaaliya mas state-kan khuseeyin inaan ka tashano oo ummadan badbaadadeed aan u soo jeesano taas ay idinku boorinaya waxaan leeyahay insha Allah waxaan idinka falayaa in wax allaal wixii istaakol ee jiray laga gudbo qofka markii reer loo yeero oo guri loo dhiso asiga la rabaa inuu reerkiisa maamusho maahina aabihii iyo adeerkii shalay gabadh u doonay sidii reerkaas loo maamulayo maxaan sameeyaa asiga ma weydiiyaan asiga la rabaa inuu maartay reerkiisi sidoo dhaqi lahaa asiga laga rabaa xildhibaan hadduu la doortayn sidii baarlamaankaas ugu shaqeyn lahaa oo ummadda Soomaaliyeed danaheed iyo waajibaadka asiga lagu leeyahay iyo xuquuqda ummadda leedahay u soo dhicin lahaa asiga laga rabaa ma ahin yani akhyaartii laga soo tagay oo na soo dooratay in maaragtay dad kamid ah inay yiraahdaan maalintan fadhiiso berina kac saadan ilbaabka ka bixin xaq ma aha taas marka walaalayaal waxaan idin leeyahay ha loo yimaado talada waa naga wada dhaxaysa wax allaala wixii la tabanayo naga hadlaysan wada hadal aan ka galayna aad iyo aad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh